ولذلك وحال يراهدا هادي قف بدبادي لها oo dadka dhibkooda uu ka badbaadi lahaa waxa badbaadi lahaa nabiyullaahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay akhlaaqda meesha ugu fiican ayuu ka joog maca dalika dad baa dhibsaday oo wax ka sheegay oo dhibay maadaama marka nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam oonan dadka dhibkooda ka badbaadin qof kaste waxa ku iimaanaya dadka uga iimaanaya xaqooda wax oonan ku farxahayn nabiga maxaa la amray marka ilaahay wuxuu ku yiri khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin saasa nabiga la amray sallallahu alayhi wasallam afwiga qaadali marka hadii dhibaato lagu la yimaado afwi ku qaabil wanaaga amar kuwa jaahiliinta ahna ka jeeso afwigi baa la amray nabiga kaleey salaatu wasalaam afwiga illa is'afiya wa ilaahi subhanahu wa ta'ala waxyaalaha adoomadiisa uu ku jeclaado adigana baahi weyn baa u qabtaa ilaahay inuu ku jeclaado ilaahay wuxuu leeyahay wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim عافية iska dhaafa miyaynan jeclaana ilaahay inuu idin dhaafo marka qofku wuxuu helayaa ilaahay inuu dambigiisina u dhaafo ilaahayna uu jeclaado wuxuu sabab u yahay dambigaaga ilaahay inuu dhaafo wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wasalaam man la yarham la yurham wa man la yaghfir la yughfar lahu qofka naxariisan looma naxariisto qofka aan dadka dhaafina u cafina lama cafiyo adiga marka waxa rabtaa ilaahay inuu ku cafiyo waxa rabtaa ilaahay inuu ku naxariisto isweydii khalqiga ilaahay ma u naxariisataa adigu cafiska ma bixisaa hadaa cafiga aad bixisid oo wax cafisid ilaahay waxaad ka sugaysaa inuu asna ku cafiyo hadii ilaahay khalqigiisa aad u naxariisatid ilaahay waxaad ka shinsanaysaa ka sugaysaa inuu ku naxariisto ilaahay waa jecel inna allaha afuwun yuhibbul afw ilaahay waa mid afis badan afintana ilaahay waa jecel yahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nabigu yiri alayhi salatu wa salam ma min rajulin yujrahu jiraha fayatasaddaqu biha qof ma jira la dhaawacaya dhaawac oo jasadkiisa ah oo qofkii dhaawacay iska dhaafaya illa kaffara Allahu anhu mithla ma tasaddaqa aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ilaahi wuxuu u dhaafaa inti asagu u dhaafay oo dambi ah oo kale ayaa ilaahi asagana u dhaafaa qofna dhaawacay ma jiro dhaawacii loo geystay iska cafiyay إلا إلهي حقي سأيال لوغا الدنب دافع إلا إسعافيه أو ضدكو أي إسكو تنازلان أو وحي اللقاء قال آد عفيسد ومن صفات الأنبياء والمرسلين إلهي أنبياء دي أصدري أو خلقي أو قيمها بضنا تلمامه دي صفات كودي وحا كمد أها إني وحا فنجري أيا كمد أها وحي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحمد النبي إن هذا وجهه يحكي نبيا من الأنبياء أصدق كشكينا يا النبي كحكايونا يا أنبياء دي هرع نبي كمدا حكى حكايونا ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه قوم كيسيبا انتي بينيين دلي way garaaceen dhiigna waa ka keenay dhiigiiba wajigiisa ka masaxaya wuxuuna ku ducaysanayaa oo leeyahay Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun ilaahu qoomkayga u dhaaf waxba ma ogeen ilaahu u dhaaf waa qoom beeniyay oo cadaawad oo la soo qasday oo waxa weeyaan gacanta u qaaday oo dilay oo dhiig ka keenay nabi ilaahay ayuu wuxuu ugu bedelayaa duco ma habaarahay
nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam tilmaamaha uu ilaahay agtiisa ku lahaa uguna qornaa kitaabkii injiil ahaa waxaa ka mid ahaa oo injiil ku taalay laa fadun walaa haliid walaa sakhaabun biاlaswaaq walaa yajzi biاsayi'ati milaha bal yacfuu wayasfax saasaa ku taalay nebiga aakhiru zaman soo bixi doona oo weli adduunka aan imaanin tilmaamihiisa kitaabka injiila intuusan soo bixin ka hor waxaa laga akhrin jiro ku qornaa nebigaas soo bixi doonaa mid qalbi adag ma aha mid hadalka kana ma aha mid suuqyada dhawaaqa oo suuqyada qayladhaan la taaganoo codka kor u qaadana ma aha walaa yajzi bisayi'ati milaha nebigaasi xumaan haddii loo geysto ayadoo kale kuma amaal mariyo bal yacfuu wayasfax waa iska dhaafaa waana cafiyaa waana ka jeestaa nebiga tilmaantiisu ahayd yahuudi waa yaqaaneen nasaarana way yaqaaneen tilmaamaha nebiga aakhiru zaman soo baxahaya inuu yahay mid haddii la dhibo aan waxba dhibin ee cafiya oo cafisku uu dabeecad u yahay xumaantana aan xumaan kuga aarsanin dadkana cafiya suuqyada aan dhawaaqin aan qalbi adkayn aan lishadal fuxshi oo adagna aan ku hadlahayn inuu yahay bay yaqaaneen saasaa nebigu ku tilmaamay walidaalika caaisha waxay tihi radia allaahu canha wama intaqama rasuulu اllahi linafsihi ilaa an tuntahaka xurmat اllah fayantaqimu lilah weligiis nebi moxamed calayhi الsalaatu wasalaam naftiisa darteed uma aarsan haddii asaga shaksiya dhibaato loo geysto haddii xoolihiisa la qaato haddii asaga la ceejiyo la qabto asaga naftiisa wax ku saabsan weligiis nebigu uma aarsan laakiin haddii diinka ilaahay meel looga dhaco oo diinka ilaahay lagu xadgudbo ciddii ku xadgudubta nebigu tilaabo ka qaadan adiguna waxaa tahay cagsi waxaa laga yaabaa haddii hadal qof maalin kugu yidhaahdo ama wax yar oo u baahan tahay kuu diido ama mhiil aad u baahneed aad ka weydid weligaa cadaawad baa kugu taagay inaad ka aarsatid baana jecesha laakiin haddii maantoo dhan diinka ilaahay lagu xadgudbahayo wax aad isbeddelah oo aad dareemaysid ma leh wax mas-uuliyadu aad iska saaraysid iyo wax aad ka daqnanaysid inay yar tahay baa laga yaabaa laakiin adiga haddii naftaada iyo maalkaaga lagu xadgudbo way kaaga daran tahay diinkiiyo lagu xadgudbo waa musiiba marka nebigu saas ma ahayn sal ly slam wixii nebigu asaga naftiisa ku saabsan dadka waa iska cafinaya laakiin diinka ilaahay buu ilaalinaya calayhi الsalaatu wasalaam